مواطن صومالي برايم مينستر waxaan idinka codsanayaa qayb حقنا هنا لسيو مواطن صومالي اسكرت أنا إذا ما بهنا إنها أنا يا قرابة أنا كأنسنا هنوتها شرف لا دولتنا شرف لا يكوتها أيضا فانهين مدحوينها الجمهورية أن احترام من جعلنا أنا معانا نوها أنا وحصو دقيق إسكول بينتور أكتوبر ودقناي ما يفهمت ما أنتنا ويلكيس إرعدي شغل إرعدي وقت إبله أو آذن له كرن شغالا أحي أن صور شغيني dad asxaabteena waa ku geeriyoodeen alxamdulillaah rabbil caalamiin sida uu warhaysiin waxa waa dagaal sukeeyay markuu dhacay oo wadanka la kala cararay waxaan ahayn dadka u dhabar adeegay shaqadan anaga ma ku bilaabin wax anaga aan sameeyno ma aha madaxweynaha iyo madaxdii hore ka sameeynaysi ayaa noo yeeratay waxa loo baahday dad wax wadi karo oo shaqeyn karo oo khibrad leh إلين دجال سقيا هذا ودع كل وضع كله والو كلتي واحد من 0-0 وحلو بهنا إن لو كانت دت فرصة ميقانة النجا وحنا دت فرصة ميقانة دت تجنور كرتنا بنجيلك لو واكد ولنا بنجي هرومرين تمعني يسوي حواي هرومرين حق نقال بيرو هرومرين حق كلوميسي هرومرين حق بيرها انت سانكسو تخصصنا سي ودنك أن وقبلنا واحد عدي إن wixii oo dhan 114 qaana ma ka akhrisanaya timin sheekadii niman yareero dhalinyaro ah oo hadda ka soo baxay 2000 iyo xoogaag jaamacada ka soo baxay ayaa xilka loo dhiibay annagoo 46 sano 47 sano khibrad leh oo aan rabnay inaan wax barno aan nagala diiday anigu waxaan ahaa jaamacada ummadan macallin ka ahaa oo baraan bahaaba aniga sida wax loo baro dadka sida wax loo hagaajiyo waxaan ku dhaaranaa wallaahi inaysan aqoonin hal hektar meeqa mitir square way ma yaqaanin dadkii wax u sheegi lahaayeen waxaan sameynaa waxyaalo badan oo capacity building ah shaqaalahan hadda maanta shaqada laga raacday oo laga fariisiyay waxa ku jira dad tagay Ethiopia dad tagay Kenya mashruuc weyn oo waxa jira kalkiima la yiraahdo meesha lagu soo qabtay maxuu ahay Turkiga lagu soo qabtay waxyaalo badan dad dhisanay ahayn ala kulli xaal annagana intaan waxbaan isdhaafsan jirnay nin odayaha yimid hadda waxa waa qofka wuxuu noo qoonin waa indhow ka rida moogta wixii meesha joogay oo ka soo horeeyay oo ka khibrad badnaa dadkii wuxuu yiri shaqada idinka fariisiyay sabab ma sheegin wiligood dad aan gooyin shaqada aan ka dhuumanaa jiran goosimo maxaa waa dad aan wiligood ka daahin shaqadooda oo xilkas ah oo soo shaqeeyay oo dhisan lagu doortay nin yar oo shala soo baxay oo new graduate hadda jaamaca ka soo baxay xigmadii iyo way aragnimadii iyo wax garashadii iyo hawshu sidii lagu wadi lahaa waxbana lama weydiinin waxa la yiri kaalay imaada warqad ana ugu horeeyay iyo nin kale waa noola yeeray idinka u weynaadiyay labadiina kaalaya warqadan saxiixa maxay taa warqada ma akhrin karnaa maya warqadan saxiixa maxaan ku saxiixnaa waxa ku saxiixaysiin in shaqada la idinka fadhiisiyay oo aad tihiin lay off macnaheedu ma taqaano yiri lay off macnaheedu waa naqaanaa annaga waa dad laga maarmay bangiga annaga ma naga maarmaa may dadka beeraha ka soo shaqeeyay oo warshadaha ka soo shaqeeyay oo waxaan soo sameeyay waxa ay ugu daran maalmaha kamid ah waxa ay ku dhacday anoo marayo muxuu warshada baasada agteeda mid askari wuxuu yiri wariyaa ka bax meesha markaasaan maxaan uga baxa wallaahi hadaadan bixin xabadan kugu dhibcina حبد لسكت بعي ما جرت وكل دله ما يفهم ريسكي قاس يقطر تسون صومر بنجي سهله يدو حقوق بين اللغاتي مشارك اللي يقوها نددي
saaxiibul xaas aan ahay waxaa la yidhi 3 bilood waxaa dhacday in layga saxiixa waxaa dhacday iyadoon faan ahayn madaxweynaha jamhuuriyadda aan ixtiraaman jecelna aniga macaanan u ahaa anaa wax u soo dhigay iskool bintur October u dhiganay ma fahamtay maantana wiilkiisa ay raacday shaqada ay raacday codsi xaqiiqan raba Soomaaliyan ahaan gudoomiyihii wuxuu naga soo wada Mareykanka khatartaan aan nimid anagoo 3 ah qof waa naga dhintay laban ku joognaa oo khibrad leh oo wadanka u soo duubtay nin yar oo hotel ahmaag ah oo aan la soconin bangiga qiimihiisa oo aan ogeyn hadda haddii la yiraahdo Indian Ocean badda meeqa nooc oo kalluuna ku jirto ma yaqaan meeqa hektaraan abuurna 270 beer waxay ka bilaabataa Dr. Ismaaciil meeshiisa ilaa geeska kale waa soo tirinay waa ka soo shaqeynay waan wadankan rabnaa inaan wax qaadano lacagta aan ka qaadanay Mareykanka iyo Canada aan ka qaadanay waxay ka badan tahay 5 goor ay ka badan tahay saas daraadeed aan jaamacadna macalinka ahaa bangiga horumarintana aan joogo marka codsi madaxweyne Prime Minister waxaan idinka codsanayaa qayb حقنا هنا لسيو marka codsigan codsanayna wuxuu yahay in xaqeena la siiyo shaqadeena nagu la celiyo qofka gardarana la qabto ayaan u sheegaynaa dawladda waxaan codsanaynaa wax dheeraada ma rabno abaalkii aan sameeyna aan wadanka u qabanay in la soo celiyo ياخذين لوحد قدبه لما انت جوجت ماشان يين كانوا مقنبا waxaan u shaqeynayay bangiga horumarinta iyo dibluska Soomaaliyeed kaasoo ku soo bilaabnay waqtigii la bilaabay 2012 ee rag la bilaawdeen ayna joogaan ilaa hadda waxaa dhacday in dawladda markay ka baxday meel gaarka ee dawladda ku xigtay timid 2014 in baarlamaanka la marsiiyay oo la sharciyay decreto presidencial lagu soo saaray madaxweyne Xasan Sheekh kadibna hawsha halkaas ku wadnay waxaan ku shaqeynay si volunteer ah dhamaanteen dhaqaalaha dalka oo yara waxa dhacday 2015 in dhaqaalihii aan qaadan miisaaniyadii hoos u dhacday kadibna laga jaray 50 laga jaray gudoomiyihii madaxweynaha bangiga waqtigaas waa jooga hadeer Cabdullaahi Axmed Afrax oo noo yeeray wuxuu yiri lacagtii ayaa laga dhimay oo ma ugu shaqeynayna waxaan go'aansan dhamaanteen inaan ku go'aansanay inaan ku shaqeyno haafka soo haray oo qof walba wuxuu qaadanay haafkiisa oo qaat ayadoo ay dhacday dad kamid ah shaqaalaha kamid ah ay naftooda ku waayeen xilligaas shaqadii ay gudanayeen oo ay wadeen hawshii bangiga hawshii aan soo wadnay bangiga iyo dhibaatada aan soo marnay soo dhabar adeegnay waxa ay timid dadaalkii dawladda ay soo wadeen kadib markii dawladda ay ka baxday deen cafinta ay heshay markii deen cafinta ay heshay waxa yimid kadib isbedel ay yimid waxaana loo soo magacaabay gudoomiye cusub iyo agaasime muddo sanad markii nala joogeen iyo waxa la jooga hadeer 2024 ayaa la soo magacaabay bishii afraad waxay noogu yeereen in iskaan mariyaan laba bil markii nala joogeen waxay iskaan idin mariyaan waskii hubinayna ayuu qof walba ee keentay ama xildhibaankiisa ama nabadoonkiisa dhamaantood waana waxaa la buuxiyay dhammaan qof walba biographikiisa sidii anagu ugu joogno waxay bilaabeen in xafiisyada dawladda aan deganeen markii dhaqaale la helay inay kireystaan guri ay ka kireystaan meelaha uu dakhliga badan gurigaas ay u guureen halkaas ay degeen
markii ay degeen oo shaqada anagoo ku jirno bisha tan Oktoobar waxay bilaabeen inay yiraahdaan leedima baahno waa iska tegaysaan ayagoo aan ogna intii aan joogno ay keensan dad shaqaale ah oo ehel u yihiin in lala joogeen ay reebeen ayagoo rag kamid ah boosaskooda ay ku bedeleen hadda dhalinyaro shaqeynta ugu yaraan 7 sano halka waxa isku joognaa rag shaqeynaa 12 sano 10 sano 7 sano ugu yar 5 sano intii waxay yiraahdeen uma baahnin waa iska keensaareen waxay tihiin waste atiin xuquuqdeen halkaas ay rabaan inay ku baabiyaan waxay yiraahdeen anagoo shaqeynaa bisha Oktoobar xaq aan idin siinay bisha Oktoobar mushaharkiina iyo November iyo December arintaas ayaan cabasho ka nahay waxaan cabasho u nahay dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynaha sidaas soo magacaabay agaasimaha guud iyo gudoomiyaha aadan Roble iyo Hodan Cusmaan labadooda waxay ku tunteen xaqdigii sharaftii maankii shaqaalihii soo shaqeynay soo dhabar adeeg wax yar ku soo shaqeeyay maanta markii la gaaray in horumar loo tilaabsado in ay yiraahdaan anagu idima baahnin ilmaheena iyo qaraabadeena keensanayna waxaan u tahay sharaf dhac dawladana sharaf dhac ku tahay aan ku codsanay madaxweynaha iyo wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka hanti dhowrka garyaqaanka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dhammaan inaan codsigeen iyo cabashadeen ay fiiriyaan natixgeliyaan weliba ay baaraan waxa ay ku tagrifalka ay noogu sameeyeen waxa ay naga boobeen waxa ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ee horumarka loogu sameey lahaa meel ay marsadeen asxaab gaar ay geysteen hawshooda wataan in ay ka qabtaan ummadda Soomaaliyeed hatta waxa ay leedahay hukuumihii loo soo abuuray oo bangiga horumarinta shaqadiisa ay ahayd oo bangi muhiim ah ayay ka bursadeen waxaan kaloo sheegaynaa in dadka meeshan jooga qaar ka mid hatta ay yihiin seminaaro ay ku soo qaateen dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ilaa iyo Turkiga ilaa iyo Itoobiya iyo gudahaba wax ay tixgeliyeen dadkaas ma leh waxaa jiro la taliyaal ay xilka ka qaadeen waxaa jiro rag soo qoray horumarinta xagga beeraha iyo xoolaha iyo agriculture oo research ay soo sameeyay ay yaalaan hala qoyay hala u baahan halkan soo gabagabeynaa codsigeena ah in dawladda ay tixgeliso tabashadeena khaaska tabashadeena ummadda Soomaaliyeed waliba waxaan si sheegay in ummadda shaqaalaha waa dadka ugu yar ugu tabarta yar in lagu tuman xuquuqdooda inay dawladda ka shaqeyso anagoo ah Yuusuf Aadan Sheekh shaqaalaha waxa ka ahay bangigaas waxa joognay meel oo inta ahoo ayaa waardiye ka ahayn anagoo 3 qofood ay meesha waardiye ka ahayn 8 sano iyo xoogaa ayaa meesha ka ahay shaqo ka ahay habeenada kamid ah anoo meesha joogo waardiyaha oo jiif ayaa qajaf maqlay qajafta da maray ka soo kacay tuuga waxa ka soo booday darbiga kor tuuga daar caday jarjara meel u saaray jarjarada qabsaad dhahay waa soo booday baraa u dhuftay gacanteeda waa jabtay baraa la giri waa laga bixiyay lacagta bankiga iga bixiyay wax kale oo xaq ah ima siinin 220 ana qaadanay 220 qaadanay ayaa had wax lahayd banaanka ka tahay xageena ayaa rabnaa in la siiyo waa dulmanahay dulunkaasna uu sameeyay ayaa rabnaa in la qabto